xisbiga wadani ambasador maxamed cali aad baa mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin waynu bilaabanaynaa hal kelmad oo aan 2 daqiiqo kaliya ka badnayn ayuun baa idinka horeynaysa toos baynu su'aalaheena u gelaynaa marka insha Allah Axmed Nuur oo Inspire Group dhammaan halka dhalinyarta fadhida waa Inspire Group aad baan ugu mahad celinaynaa shaqadii fiicneed ee xalay qabteen caawa nagala qabteen ka shaqeeyeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا مولانا محمد مدن يا اليمر وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مهمة مدشني واحد هاي دوتا إن سوق نيو دحيسو مرشحين تمدحوين كحجين كجمهورية الصومال هسه حتى واحد دوني ياين عن هل كلمة كحسو تاريخ دي حالي دعضي حالي سومالان waxay u noqonaysaa maalin u suntan oo astaan gaar ah u leh 16 sano Soomaaliland jirtay Soomaaliland xalay waxay u heshay saaxad bay u heshay ay ku tusto adduunyada qaangaadnimada dimuqraadiyadeed dhismaha qaranka iyo ixtiraamka madaxda qaranku ay ku soo bandhigi karaan arinta waxa suurtagelisay kooxda da'da yar ee halka fadhida oo iyadu garowsatay ama aragtay kaalin banaan oo ah in awoodda dhalinyarta ee qaranka Soomaaliland loo isticmaalo sidii bulshadan horumar loogu keeni lahaa xalay taariikhda waxa ka mid ahayd in marka la eego saxaafadda social media-da in Soomaaliland markii ugu horeysay ay qaadatay kaalinta koowaad oo ay daawadeen 3 milyan oo qof ama ay ka bixiyeen faalooyin ama ay tilmaamo ka bixiyeen taasoo muujinaysa in marka wax wanaagsan aad haysato ee laakiin aan la ogeyn ay habboon tahay inaad marto wadooyinkii lagu soo bandhigi lahaa waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaaliland 16 sano deedaysa waxa ka mid ah ictiraafkuna wuxuu u baahan yahay shuruudahaasina waxay u baahan yihiin garowsiyahaasina waxay ka yimaadaan unugyaha adduunyadu isku raacdo ee ugu horeysa qaramada midoobay ama wadamada jaarka ama wadamada kale haddii aanay warka hayn haddii aanay ogeyn waxaad hayso haddii aanay ogeyn shuruudaha si aad u buuxisay marnaba ma hirgelayso inay ku garaabaan taana waxa hirgelisay Inspire Group ugu dambeyntii waxaan xusayaa Inspire Group waxa qura ay u taagan tahay inay awoodda bulshadu ay u leedahay inay madaxdeeda la xisaabtanto inay adduunyada la xisaabtanto inay wadamada jaarka la xisaabtanto ay soo bandhigto way 16 sano markastoo hadalna waxaan ku doodnaa Soomaaliland nabadgelyo gaadhay horumar bay gaadhay wasaaraday dhisatay
laakiin waxaynu ognahay inay hal wax ka maqan tahay somalilan taasoo ah isla xisaabtanka ama accountability-ga waxa loo yaqaano marka waxaan taagannahay halkaa waxaad ku aragtaan ready to change waxaan u taagannahay inaan bulshada u abuurno madal ama meel ama aqoon ama maskax lagu soo bandhigo lagu carbiyo bulshada siday madaxdeeda ula xisaabtanto markaasunba ama cadaalad la helaya ama horumar la helaya waayo tusaale qofka madaxdii waa shaqaalaha bulshada marka qofka shaqaalahana in la xisaabtamo xaq baa loo leeyahy marka somalilan 66 sano haddaad cid kasta weydiiso ugu dambayntii waxaan sheegayaa inaan weli lahayn qof siyaasadda soo maray ama hoggaanka soo maray oo inta lala xisaabtamay la yidhi waxbuu kharribay waxay ku tusaysaa waxa weeye bilaadanku wuu samaysan yahay wanaagga iyo xumaanta qofna hawl marka loo diro waxa weeyahay waxna wuu wanaajin karaa waxna wuu xumayn karaa marka arrinta isla xisaabtanku waa waxay naga dhiman annaguna taasaan diyaar u nahay inaan bulshada u soo bandhigno oo aan ku carbinno markaa saaxiibaday waa mahadsan yihiin waa niman da'yara waa niman aqoon-yahanah waa niman u diyaara inay mujaahidiinta cusub ee bulshada noqdaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa u mahadsantihiin musharaxiintana waxaan rajaynayaa guul baan rajaynayaa guushii xalay waxaa qayb weyn ka qaatay sharaftii ay muujiyeen musharaxiinta saddexda xusbi oo ahayd inay ku koobnaadaan shuruucdii marka iyagana waxaan rajaynayaa insha allah inaad taa mid la mida caawa ay sameeyaan aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad mahadsantihiin anshaxaya nidaamkaynu ilaashanaynaa si toosaynu barnaamijkeena u gudagelaynaa wakhti badanna ma qaadanayna haddii allah awoodda le uu qadaro waxaan u yeedhayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid professor axmed cabdi muuse abyan koonaha usha ayuu leeyahay waxaan u yeedhayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye ahna madaxweyne ku-xigeenka haatan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici dhexda waxaan u yeedhayaa iminkana musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani ambasador maxamed cali aw cabdi qodobada aynu ilaalinayno waxaa ka mid a sacabka marka su-aalaha laga jawaabayo markay soo daadegayaan iyo markay korayaan baynu leenahay qofna qofka kale ku xiga hay ixtiraamo hadalkana aynu yaraysanno wakhtigana waynu koobanaynaa wakhtigana waxaan jecelahay inay waaxda farsamadu siciid waaxda farsamadu wakhtigana waynu koobanaynaa 2 daqiiqaynu u daynay wakhtigeennii su-aalaha hore laga jawaabayey haddii ay idinku filaatana waa sax hadday idinku filaan weydo wakhtigu idinka dhacana wa idin iska joojin qofkay ku filnaataana dhexdu kaga bixi laakiin waynu koobanaynaa aad baynu u koobaynaa insha allah su-aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa musharax sharaxaad kooban naga sii amaba nooga sheeg sababta aada ugu habboon tahay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee aad ku doonayso inay dadku ku doortaan xisbiga aada u tartamayso waxaan weydiinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid professor axmed cabdi muuse abyan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلا يقول دورنا يا وحان هاي هردع يتلمان مستقبل كعصوبة الصومالي لأن إن الاستيار اللي يرده فرصة أي كقريب قالان سياسة ده وحان لا يقول دورنا يا إن أنستان هاي من مدى الصومالي لأن يحوذ لها شهيدة إن وحا aad ogtihiin aad aragtaan in labada murashax saaxiibaday ay isku deegaan ka soo jeedaan aan ka soo jeedo darafka kale marka waxay murashaxnimadoodu astaan u tahay midnimada iyo xodolaanshaha Somaliland dhalinyarada Somaliland oo mujtamaca inta ugu badan 70% in ka badan oo la ihmaaliyay oo la dayacay oo aan la siin fursad shaqo iyo mid ay ku soo fuulaan salaanka siyaasadda hay'alay iyaga ayaa mustaqbalkii wadanka kuwana waxaan u ahay dhiirigelin hordhac baan u ahay waxaan ahay mustaqbalka cusub ee Somaliland sababta lagu dooranaya waa taa waxaan leeyahay khibrad iyo aqoon igu filan in aan la imaado maamul wanaag aan ku maamulayo qaranka Somaliland iyo hay'adihiisa dastuuriga ah waxaan inta raacinaya oo ku darayaa aniga iyo xisbigaygu labadayaduba wax lugo kuma aanan lahayn xukuumadii Somaliland hadda jirtay kuwii hore toona kuma aanan milmin rekoorka iyagu waa clean saaxiibaday labadooduba waxay ka soo jeedaan laba xisbi oo ka soo qayb qaatay ama kamid ah xukuumadda hadda ee kulmiye annagu waxaan leenahay record clean ah xukuumadda ama corruptionka ama waxyaabaha lagu dhaliilaya xukuumadda annagu qayb kama aanan ahayn taasina waxa weeyaan waxyaabaha lagu dooranayo aan kaga duwanahay saaxiibaday ood mahadsantahay isla su'aasha maxaad sharaxaad kooban nooga sheegi kartaa sababta aad ugu habboon tahay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee in codka lagu siiyo xisbigaaga aad ku doonayso mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici musharax ku-xigeenka xisbiga kulmiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مدن ياشي مروين كان فدي مركور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن ugu mudanahay ama aan ugu sharaxanahay laba qodob qodobka koowaad anigoo nin waaya araga isla markaana bulshadiisa wixii duruufo soo maray ilaa maanta dalkan la xoreeyay soo dhex joogay garan karaya dhibaatadooda iyo baahidooda isla markaana dalka soo bilaabay kana soo qayb qaatay dib u dhiskii dalka dib u heshiisiintii iyo dimuqraadiyadda maanta socotaba waxa kaloon lagu dooranaya ama xisbiga lagu dooranayaa muddada 7 sano shaqaynaynay isbeddelka dalkan ku samaynay ee muuqda oo qayb ka ahaa iyo anagoo ku hamiyeyna in hawsha aan soo qabanay ee muuqata wixii ka qabyoobay ama goldololo ka soo muuqdayna inay maartay halka ka sii ama qaadno oo aan u diyaarnahay wixii la tabayo ee maartay ka dhiman ama hawliina 7 sano wadin naga qabyoobay saa u dhamaystir lahayn taasaan maartay aan leeyahay saaxiibada harayga jooga aan kaga waaya aragsanahay in dalkan iyo dadkani aan uga aqoon badanahay waxa la dhakhtarku wuxuu daweeyaa markuu cudur garto hogaamiyuhuna waa saas oo kale hadduu hogaamiyuhu garanayn baahida bulshadiisa iyo sida uu dhaqan tahay soo nooshahay ma daweyn karo taasaan maartay kaga doonahay walaalayga la tartamaya aad mahadsantahay isla su'aasha sharaxaad kooban nooga sheeg sababta aad ugu habboon tahay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee aad ku doonayso inay codka ku siiyaan dadka ku taageersan ee xisbigaaga aad taageersan tahay amaba aad ka soo jeeda ee wadani ambassador maxamed cali aw cabdi بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ugu habboonahay in la ii doorto jagada madaxweyne xisbiga wadani Somaliland waa dal yar waa dal u baahan inuu helo aqoonta dadkiisa dadka way aragga
inay u hoggaanka u qabtaan waxaan leeyahay aqoon iyo khibrad aan muddo badan dalka iyo dibaddaba kaga shaqeeyey waxaan waayo arag u ahay xidhiirka dibadda dalalka adduunka somalilan waxyaalahay u baahan tahay waxaa ka mid ah inay adduunka ka hesho ictiraaf waxay u baahan tahay in laga dhigo dal soo jiita maalgashiga adduunka waxaan aqoon u leeyahay dalalka adduunku se u shaqeeyaan oo muddo badan hay-adda dibadda anaan ka shaqeeyey dalka dibaddiisana aan ka shaqeeyey waxaan leeyahay waa waqtigii qofka aqoontiisa iyo khibraddiisa dadka iyo dalka somalilan uu ku soo celin lahaa waxaan leeyahay aqoonanku uu kaga qayb qaato horumarinta dalka waxaan leeyahay waayo aragnimo iyo aqoonaan u leeyahay dadka somalilan waxyaalahay u baahan yihiin oo muddadii 5 sannadood u dambeeyeyna ani aad u daraaseeyey waxay u baahan tahay aqoonta aan leeyahay oo kale waxaan horumarin ka qayb qaadanayaa inuu dalku helo uu ka mid noqdo dariiqa horumarka adduunku waddannada ay horumaray ay ku tallaabsadeen oo aqoon iyo waayo aragnimo iyo khibrad u baahan si looga saaro faqriga iyo baahida iyo qoqobka ay adduunka ka gashay ee aanay helin ictiraaf aad iyo aad baan ugu dadaalayaa waxaan waad ku habboon tahay shaqada madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne xisbiga waad mahadsan tahay kaa dhammaaday waqtigu su-aasha labaad baynu toos u gelaynaa su-aasha labaad baynu toos u gelay sidee loo heli karaa somalilan la wada leeyahay oo dhammaan dadka reer somalilan bari ilaa galbeed ay ku qanacsan yihiin waxaan weydiinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdulaahi saylici الرحيم waxaa lagu أير waxaa lagu heli karaa qaran ummadda reer somaliland wada leedahay in ummadda reer somaliland ay hesho hoggaan iyo tiim ka wada maydhaliya inay la gaadho in reer somaliland wada yeeshaan taasoo kow ay ka tahay in saami qaybsiga dalka oo talo qaran loo saaro waxyaabadu kala tabanayaan oo nimanka anagu aan isleeyahay waad bilowdeen wax badanna waad ka tarteen oo muddadii aan joognay walaalahayna gobollada bari oo maaragtay saaxadda dalka ka maqnaa aan isleeyahay wax badan baad ka qabateen oo kusoo kordhiseen oo maanta maamulkii dalka aan gaadhsiinay ilaa xuduudihii iyo in la sameeyo shirar fara badan ama maaragtay la tashiye fara badan oo heer qarana oo lagu saxayo arrimahaasi iyo in wixii waddanku leeyahay khayraad oo si cadaalada ummadda loogu qaybiyo ayaa waxay keeni kartaa inanka reer somaliland ee sool jooga iyo ka looyacaddo joogaaye in dareen la dareensiiyo in dalka wada leeyihiin wixii waddanka khayraad u yeesho in si siman oo cadaalada loogu qaybiyo wax ka mid ah waxyaabaha keenaya wada lahaanshaha marka laga yimaado saamiga oo ummaddu hesho system u siman oo damaanad qaadaya qof kastoo reer somaliland meesha doonaha joogee inuu xuquuq siman ku leeyahay dalkan iyo dadkani waad mahadsantahay isla su-aasha sidee loo heli karaa somalilan la wada leeyahay oo dhammaan dadka reer somalilan bari ilaa galbeed ay ku qanacsan yihiin musharax ku-xigeenka xisbiga wadani mudane ambasador maxamed cali aw cabdi بسم الله الرحمن الرحيم somaliland si ay u noqoto dal hore u mara oo adduunyada wax la qaybsada oo la ictiraafo waxay u baahan tahay inay iyadu horta is-ictiraafto waxay u baahan tahay ictiraafkaa guduhu wuxuu ka imanayaa in somaliland gobollada oo dhan cid kastaba ha degtee inay ku qancaan
wixii khayraad dalka yaalla maamulka yaalla inay wada helaan cadaalad ay u siman yihiin inay helaan khayraadkooy qaybsadaan wixii waddanka ka soo baxa oo ay u siman yihiin laakiin maanta ma muuqato oo dowladda jirtaa 7 sannado u dambeeyey waxaa muuqda tabashooyin iyo cabashooyin baahsan oo bariya galbeedba taasina waxa u sababa dowladda jirta ee kulmiye oo arrintaasi wax ka qaban weyday hadday wax ka qaban weydayna imika inta dambe waxba ka qaban kari mayso marka waxay u baahan tahay Somaliland in la isku keeno gobolada in dastuurka loo furo in saami qaybsi ay ku qanacsan yihiin ay helaan oo dadka laga talageliyo oo gobolada oo dhani ay keenaan ciddii uga doodi lahayd oo ay ku qancaan oo dabadeetana la helo cid waliba qof yar rag iyo dumar bariya galbeedba inay helaan wixii ay ka sugayeen dalka ay xaqa ugu lahaayeen wax kale cidina dooni maysa cid waliba waxay raadinaysaa xaqeega taana waxa subi karta dawlad hanaanka cadaaladeed iyo sinaanta ku shaqaysa oo aqoonteed leh oo ku talagalkeed leh oo ku dhiirashadeeda leh waan rajaynaynaa inay dawladda wadani arrintaa hirgelin doonto oo dalku sinaan doono aqoonsi gudaha waad mahadsantahay isla su'aasha sidee loo wada heli karaa Somaliland la wada leeyahay oo dhammaan dadka reer Somaliland bari ilaa galbeed ay ku qanacsan yihiin waxaan weydiinayaa musharax ku-xigeenka xisbiga UCID Professor Axmed Cabdi Muuse Abyan waxaa loo heli karaa marka hore in la qiro in ay jiraan wax wada lahaansho la'aan ama awood qaybsi rasmi ah oo ay u suman yihiin gobollada Soomaaliya inaanay jirin taa marka aad qirto oo aad fahanto ayaad hogaamiye ahaan ku dhaqaaqi kartaa in aad markaa aad wax ka qabato laakiin waxaa ka muuqatay xalay murashaxa kulmiye in aanuba qirsanaynba in mushkila jirto way jiraan qaybo ka mida Somaliland oo ka maqan awood qaybsiga dhaqaalaha siyaasadda waana maanta ay u fadhiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo gudoomiyaha murashaxa xisbiga UCID Faysal iyo maamulka Khaatumo magaalada Caynaba waxaan ognahay murashaxa kulmiye oo Cabdiraxmaan uu loo ordayo inuu ka yiri Boorame waanu soo barinay gobolada bari wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga waxaad ogtihiin in uu yiri oo aniga hortayda ka yiri Faysal ma ahayn inaad ka soo qaadato madaxweyne ku xigeen gobolada bari shakhsiga noocaasi ma midayn karo Somaliland sumana keeni karo annagu waxaanu nahay UCID ahaan xisbigii bilaabay aniga iyo hogaamiyuhuba in gobolada bariga gaar ahaan Sool Sanaag iyo gobolada Buuhoodle in laga shaqeeyo nabadayntooda in hadaladan socda hadda anigu aan qayb ka ahaa gudoomiyuhuna oo qayb ka ahaa oo murashaxa kulmiye aanu aaminsanayn baba isagu ama uu kaba soo horjeedo waxaanu xisbigii bilaabay iyo ashqaasti bilowday baanu ahayn Somaliland aan wax wada lahayn oo ku qanacsanayn oo aan midaysnayn horumar gaari mayso ictiraafna heli mayso insha Allah taala xisbiga UCID haddana wuu fadhiyaa wuuna ka shaqaynayaa in arrintaas soo afjaro aad baad mahadsantahay maxaad ku kala duwanaan kartaan ee aad labada musharaxee kale kaga duwan tahay aragtida ah midaynta Somaliland musharaxa musharax ku-xigeenka xisbiga wadani ambassador محمد علي أو عبدي بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kaga duwanahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye dhibaatada jirta ee tabashada dalka jirta ee ummadda reer Somaliland gobolada bariga iyo galbeedka iyo meelo badanba la tabanayo laga cabanayo saami qaybsi la'aan ma ictiraafsana teeda kale waxba kama qabanin anagu waxaan leenahay taas dhibaatada jirta waa in si degdega looga qabtaa taasaan kaga duwanahay musharaxa kale waa ku waafaqsanahay in la ictiraafo dhibaatooyinka jira oo la aqoonsado aad baad mahadsantahay isla su'aashan labada musharaxee kale ee xisbiyada UCID iyo wadani maxaad kaga duwan tahay
maadaama waa tahay musharax ku-xigeenka xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdulaahi saylici aragtida ah midayn somalilan oo la helo bari ilaa galbeed maadaama ay tabasha jirto بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isleeyahay waad sheegtay waxaan kaga duwanahay waxaan ku imanaysaa arrintaasi wada hadallada socda imkaba socda oo aan xoojino oo anagu aan bilownay already maantana meel gaadhsiinay wax badan oo tabanayna oo dadku ka tabanaya somaliland haddaanan ictiraafsanayn in somaliland wax laga tabanayo maana u howlgaleen dhaqaalaha intaa laga hantay intaa laga maanan gaadhsiineen maantana ma timaadeen reer sool oo 7,000 qof ama 8,000 qof ka codayaan oo somaliland ba maartay ogoleyn waxa ka socda in maanta 30,000 qof isku diiwaan geliyaan inay ka mid noqdaan somaliland waa may gaadheen taas waa ognahay in tabash jirto kana howlgalnay waxaan ka doonahay waxaan leeyahay wax hogaamiye iyo ku-xigeenkiisu kaliya sameyn karaan maaha arrintani waa arrin waa qorshaygu waxa weeye tala qaran waad mahadsantahay isla su-aasha kala duwanaanshahaga aad kaga duwantahay musharaxiinta kulmiye iyo wadani ee ah midaynta somalilan bari ilaa galbeed professor axmed cabdi muuse ebyan musharax ku-xigeenka xisbiga ucid waxaan kaga duwanahay murashaxa xisbiga wadani wuxuu yidhi cabasho iyo tabasho anu ma odhanayo waxaan leeyahay waxaa jirta wax wada lahaansha la'aan taa waan kaga duwanahay laakiin waxaan ku waafaqsanahay inuu aaminsan yahay in mushkilo jirto loona baahay in la xalliyo waxaan kaga duwanahay murashaxa xisbiga kulmiye in hoggaankiisu aanuba aaminsanayn mushkilo inay jirto inaanu aaminsanayn wada hadallada socda in aanu aaminsanaynbaba sida ka muuqata hadalladiisa in bariba cidi ka jirto waxaan kaga duwanahay labadoodaba anigu inaan ahay cidda bilowday ee ka shaqaynaysay ee wada hadallada ee ku qancinaysay gobolladaas in dantoodu ku jirto inay ka mid noqdaan somalilan oo mida ay wax la qaybsadaan taana waa kaga duwanahay aniga iyo xisbi ahaan iyo guddoomiyaha iyaguba aad baad mahadsantahay way su-aasha kale wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waa u muhiim habsami u socodka iyo hanaanka dowladnimada sidee baad ula shaqaynaysaan musharaxiintiina madaxweynaha haddii ay ku guulaystaan jagada madaxweynenimo ee dalka waxaan weydiinayaa ambasador maxamed cali aw cabdi بسم الله الرحمن الرحيم وارون ومهم وانا ارين ادي اد اني وهرك شلو باهي هي لبدا مشرح مدحوينها هي مدحوينها هي مدحوينها كحينكو اني يهين dad wada shaqeeya oo isku kalsoon diitaa la waayo oo ay dhacdo inay isku hor yimaadaan labadu oo ay mar walba mormaan taladii dalku waxay ka baxaysaa halkii loogu wajahnaa iyo sidii ay u socon lahayd waan ogeyn xukuumadda kulmiye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku dhowr jeer bay isqabteen oo ay keentay xitaa in madaxweyne ku-xigeenku uu ka dudo oo ka baxo oo la dhexdhexaadiyo oo khilaafkoogi meel u gaadho taasi waxay keenaysaa inay annaga iman mayso oo madaxweynaha haddii aan ku guulaysanno talada waa nin aan aqoon u lehay jaamacada ka wada baxnay wada shaqayn fiican baanu yeelanaynaa tala wadaag baanu yeelanaynaa oo waxyaalaha igu dhiirigeliyey inaan dalka ku imaado oo aan jagadaasi ku dhiirada inaan qabto haddaanan dalka waxba ku soo kordhinaynin baahi shaksi uma qabo umana imanin laakiin waxaa leeyahay somalilan way kuu baahan tahay madaxweynaha haddaan ku guulaysano taladana madaxweynaha waxaan ku kalsoonahay 100% inaanu wada shaqayn yeelanano isku kalsoonaanano aan lana dhexdhexaadinaynin aan cidina dhexgelaynin aanu talada dalka wadaagano talada aan soo jeediyana ay meel muhiima ka qaadan doonto oo uu tixgelinayo ana noqon doono maadaama ahay qofka labaad inaan isaga ku beeriyo taladayda si dalka hogaamin toosa u helo dalku waa ta loo baahan yahay waana ku kalsoonahay waana wada shaqayn doonaa insha allah waad mahadsantahay isla su-aasha wada shaqaynta madaxweynaha
iyo madaxweyne ku-xigeenku waa u muhiim habsabi uun socodka iyo hanaanka dowladnimada sidee baad ula shaqaynaysaa musharaxaagu haddii uu ku guulaysto jagada madaxweynaha musharax ku-xigeenka xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد وصار شيكتي وأرن مهمة قرن به قامينيان مدحوينيان مدحوينكو إني يسفهم يشان ومن وسط الجيستان دنت قرنكا ورشقينتو ونساتو والله في دبر وحسب إيش كجرة دستور كدركو وذهب مدحوينكو حينكو سيي وآدو كوبان يا وذهب مدحوينها أو وقول كيف سجاشنا أو كلا فجاشة كيري مرة بروح كيري كنسا واحد عبد الرحمن يسير يوم كود عين إسقطان ما هنا مرة والبا لما كستو صوم مرتبة يمدح يوكي ويسقطين هو السومالي جوا مرة بيسقطان يسكو حجا والظروف تعالى أو وحمر كون job description أما وحو كلا عدين أما لما وقفت كلا عرفتون نقدان يو يسكو دانون وضع كيا خلاف واحد مير شقة تعالى خلاف يلا وعقوب ما هينكي يدي طبعا كان نف لا يدي وان يمان قبا ترى ما هو كان يقول وين يقصد من الحكي صوم مراي ظروف تعالى وارك دورة ورطة لكن سوى في عنتهاي إن الله بدأ قف ولا ودورتي أي وضع الشقيان ويمارت يسكو عرفتو نقدان ويمارت تلك لحج يسكو لحج على نقدان ومن هذه مهمة وأنا ما أنتكر صورة هي مدحوين كمان مدحوين وشرحنا هي runtii in badan baan soo wada shaqaynay hadduu khilaafna soo dhex marana waa soo dhamaysanay sida maarta reeru markay dhismayaan waxa la hadduu reerku dibadda isqabsigu soo dhamaado uu gudaha galo maartay uu ka soo dhamaadaa kalsooni badan baan qabaa maanta inaan aniga madaxweynuhu wada shaqayn doono musharax madaxweynuhu dalkana si aan dhisi doono horumarkiisa ka shaqayn doono aad iyo aad baan u kalsoonahay waad mahadsantahay wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waa u muhiim habsami u socodka iyo hanaanka dowladnimada sidee baad ula shaqaynaysaa musharaxaagu haddii uu ku guulaysto jagada madaxweynaha ee aad u tartamaysaan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid professor axmed cabdi muuse abyan waxaan ula shaqaynayaa si wada tashi iyo tala wadaag iyo daacadnimo iyo danta qaranka ku dhisan waxaa annaga noo barnaamija oo barnaamijkayga ka mid a siyaasadda inaanu furno dastuurka boqolka maalmood u horreeya inaanu siino madaxweyne ku-xigeenka awood dastuuri ah oo ay hoos imanayaan hay-adaha dowladda qaar ka mid ah ma noqonayo madaxweynaha ku-xigeenka xisbiga ucid haddaan ku guulaysano talada waddanka madaxweyne ku-xigeen keliya xilkiis uu yahay marka madaxweynuhu safro inuu kusimo noqdo madaxweyne ku-xigeen laga xanqarsado wasiiradu ay ka awood badan yihiin cidda uu casilo ama shaqo ka joojiyana shaqada lagu soo celiyo oo la dalacsiiyo weliba sida hadda dhacda marka waxaanu noqonaynaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen leh awoodo sharciya oo dastuuri ah dastuurka somalilan wakhtigii la sameeyey awoodaha badan la siiyey madaxweynaha duruuftiisu maanta way ka duwan tahay waddanku waa koray wuu isbedelay wax badan baa isbedelay waxaa daruuri ah in la furo aanu furi doono dastuurka awoodna aanu siin doono madaxweyne ku-xigeenka oo markaa madaxweyne ku-xigeen shaqaynaya oo awood fulineed leh uu noqdo ee aanu noqon madaxweyne ku-xigeen bilaa shaqa marka madaxweynuhu joogo madaxweyne ku-xigeenku wuxuu mudan yahay ixtiraam wuxuu mudan yahay in madaxweynaha iyo isagu ay noqdaan labada qof isugu dhow ma aha in madaxweynaha ay madaxweyne ku-xigeenka ka xigsadaan ay uga dhowaadaan wasiiro ama wasiire ku-xigeen ama wasiiro dowlayaal sida hadda jirta wuxuu noqonayaa madaxweyne ku-xigeen muuqda oo shaqaynaya oo qaranka u shaqaynaya oo awood fulineed leh aad baad mahadsantahay maxaad kaga duwan tahay labada musharax ee kale isla su-aasha wada shaqaynta madaxweynaha daqiiqad kooban baad haysataa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani ambasador maxamed cali aw cabdi بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kaga duwanahay kalsoonida
aan ku qabo anoo adeegsanaya aqoonta aan isku leenahay musharaxa madaxweyne ee xisbiga waddani kalsoonidaasaan qabo ah inayna dhacaynin wax khilaafa oo na dhex yimaada inayna dhacaynin faqooq wasiirada iyo xukuumadda qaarkood albaabadooda oo xidhan yihiin oo laga tashado oo meel cidla marmar fadhiista waxaan kalsoonahay inaan noqonayo madaxweyne ku-xigeen talada dalka wax ku leh oo la tixgeliyo waxaan aaminsanahay inaan helayo jaanis ama fursad aan cilmigayga iyo taladeeda ku gudbiyo oo waddanka lagu qaato oo madaxweynuhu aqbalo waad mahadsantay su-aasha lafteeda kala duwanaanshahaas aada labada musharax ee labada xisbi kaga duwan tahay maxay tahay hanaanka wada shaqaynta madaxweynaha la doorto ee aada ku-xigeenka u noqonayso musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdulaahi saylici maxaad kaga duwantay labada kale بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kaga duwanahay baan isleeyahay maanta musharaxa aan wada sharaxanahay waa musharax ugu weyn aragsan Somaliland waa musharax dalkan iyo dadkan wax badan soo qabtay waa musharax soo maray dariiqooyin fara badan soo maray aniguna waxaan musharax maanta 7 sano oo waayaarnimo haysta marka waxaan qabaanigu inaan maanta noqonayno labada qof ugu habboon ee dalkani wax ka bedeli kara taladooduna ay meel mid ah ka wada noqonayso wixii hor loo tabayana isbedel ka imanayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen laba wada doortay oo karaamiyo sharaf ku wada shaqeeya inaan noqono yaan rajaynaa taasaan ka duwanay waad mahadsantahay isla su-aasha kala duwanaanshaha wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee madaxweynaha la doorto haddii lagula doorto aad kaga duwan tahay fikradaadu muxuu yahay labada musharax ee kale ee kulmiye iyo waddani professor axmed cabdi ebyan waxba kuma waafaqsani waxaan kaga duwanahay labadaba noomay sheegin wax barnaamij siyaasadeed oo qeexaya ama siinaya awood madaxweyne ku-xigeenka taasi waxay keenaysaa in xaaladda hadda jirta ay sii soconayso waxaan kaga duwanahay murashaxa xisbiga waddani wuxuu yidhi aqoon baan isu leenahay murashaxayga oo iska hor iman mayno waxaynu ognahay murashaxiisu inuu ku-xigeenkiisii kula feertamay baarlamaanka waxaan kaga duwanahay murashaxa kulmiye waxaa sii soconaya ta hadda jirta nooma sheegin oo maanaan maqal wax beddelaya xaaladda hadda jirta sidaas un bay sii ahaanaysaa weliba intaa waxaa u dheer oon ogahay murashaxa hadda uu u noqonayo ku-xigeenku in uu ka qallabsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland hadda jirta waad mahadsantay wakhtiga kaa dhammaaday somalilan idinkoo mahadsan anshaxaynu ilaalinaynaa xeerka madasha dooda ee musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inaynu ilaalino idinkoo si toosa ugala soconaya telefishinada caalamiga ah on cable t v ariel social mediaha iyo telefishinada kale aad baan idinku mahad celinayaa su-aasha afraad baynu gelaynaa dastuurka somalilan waxa uu siiyey ku-xigeenada madaxweyneyaasha qodobo kooban iyo awood kooban dastuurka qodobadaasi uu siiyey ma ku qanacsan tihiin mise waxaad jeceshihiin in isbeddel lagu sameeyo si talada dalka uu isbeddel ugu yimaado haddii dastuurka isbeddel lagu sameeyo waxaan siinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid professor axmed cabdi muuse abyan sida ku cad barnaamijkayaga siyaasadeed kuma qanacsanin waayo wakhtiga la sameeyey dastuurka somalilan duruufta jirtay iyo waddanku sugaa hadda wuu isbedelay awoodaha madaxweyne ku-xigeenkuna aad bay u kooban yihiin waxayna ku kooban tahay keliya inuu noqdo ku-siisime marka uu maqan yahay madaxweynuhu ka maqan yahay waddanka
iyo haddii ay yimaadaan xaalado gaara oo sida madaxweynuhu haddii tii alla u timaado haddii ay timaado xaalad ku shaqayn kari waayo arrintaasi waa arrin runtii dhaawac ku ah horumarka waddanka iyo maamul wanaagga annagu waxaanu aaminsannahay dastuurka in la furo in la siiyo madaxweyne ku-xigeenka awoodo dastuuriya in la siiyo in hay-adaha dawladdu oo aad u badan maanta qaar ka mida ay hoos yimaadaan si culayska looga qaado madaxweynaha oo aanu noqon madaxweynuhu shakhsiga keliya ee awooddii fulintu ay isugu ururto taasi waxay yaraynaysaa isqabsiga iyo khilaafka iyo iska horimaadka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sida hadda jirta oo la carabaabay inana aynu ognahayba waxaa taasi ay yaraynaysaa in madaxweyne ku-xigeenkii uu noqdo for example laga qarsado xanta wasiiradu ka awood badan yihiin agaasimeyaashu ka awood badan yihiin madaxweyne ku-xigeenku waa inuu noqdaa madaxweynihii qaranka gacantiisii labaad aad baad mahadsanteen isla su-aasha uun dastuurku awoodo kooban ayuu siiyey madaxweyne ku-xigeenada madaxweyne ku-xigeen musharax haddii aad u tahay xisbiga waddani ambasador maxamed cali aw cabdi maxaad ka qabtaa mase ku qanacsan tahay awoodda uu dastuurku ku siinayo haddii aad noqoto madaxweyne ku-xigeen bismi illaahi raxmaani raxiim horta dastuurka markii la sameeyey somalilan dastuur ka eegan muddaa ka soo wareegtay waxaan wakhtigan imiga la joogo kolley waxaan aaminsanahay inay tahay wakhtigii la furi lahaa dastuurka ee waxyaalo badan dib loo eegi lahaa oo ay ka mid yihiin saami qaybsiga waxyaalo badan oo ku jira dib loo eegi lahaa ta awoodda madaxweyne ku-xigeenka haddii madaxweyne ku-xigeenka awood la siiyo kale waxaa dhici karta inay dhalato laba awoodood oo murma oo khilaafka imiga laga cararayo ay sii badato waxay tahay talada oo ay ku fiican tahay haba la furo dastuurka dib ha loo eego waxaa lagu daro awoodda madaxweynaha ku-xigeenka laakiin awoodda madaxweyne ku-xigeenka ee dastuurku uu siiyo anigu kolleyto baawar kuma raadinayo aniga hala ii furo odhan maayo because waxaan ku qanacsanahay wada shaqaynta aanu wada shaqayn doonno madaxweynaha haddii aanu ku guulaysano xilka taasaana muhiimahoo haddii awoodda dastuurku siiyo waxaa ka muhiimsan mar walba isfahamka iyo wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ka dhaxaysa dastuurka in la furo waan aaminsanahay waxyaalaha ka dhiman ee imiga duruufuhu keeneen ee saami qaybsu ka mid yahay in lagu dabaqo madaxweyne ku-xigeenka haddii awooddiisa wax lagu kordhinayana inayna noqonin wax keeni kara awoodda madaxweynaha inay iska hor yimaadaan oo la abuuro khilaaf hor leh oo madaxweynaha ayaa aad talada dalka isaga gacanta ku haya madaxweyne ku-xigeenku waxa weeyaan gacantiisii koowaad waxayna ku xidhan tahay siday isku fahmaan ee ay iskugu qanacsan yihiin inay waddanka horumariyaan taladiisana ay wadaagaan laakiin haddii wax laga bedelo isdoorka waxaan aaminsanahay in la furo sila su-aasha dastuurka somalilan awoodo kooban buu madaxweyne ku-xigeenada siiyey adiguna madaxweyne ku-xigeenka waxaa tahay haatan ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiya ma ku qanacsantay awoodda dastuurku ku siiyey mise waxaad jeceshay in la furo oo aad aaminsan tahay بسم الله الرحمن الرحيم سؤال كوبان جوابته كوبان kuma qanacsani sida maanta uu dastuurku yaallo duruufo badan baa dalka isbedelay waxaan ku qanacsanahay in wax laga bedelo somaliland taladeeda ku noqoto haddaan tixi raaco saaxiibkayga xisbiga ucid waxaana barnaamij maaha barnaamijkayga buuriyaan wuxuu sheegayaa buuriyaan awoodaha madaxweyne ku-xigeenka wax ka bedelno tani barnaamij maahina waa dastuur cad dastuurna bedelkiisu waa wuxuu leeyahay meel jid loo maro marka waxaan leeyahay qodobkan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ee qodobka 48aad ee awoodaha madaxweynaha madaxweyne qeexaya iyo qodobo kale oo badanba maadaama dastuurku waqti soo shaqeeyey muddo 20 sano ku dhow aynu isku soo dhaqmaynay
loo baahan yahay in dib loo review gareeyo oo wixii ay maaragtay inaga khaldamay ama maaragtay borona keenay ama qabyoobay inaan dib u habayno oo waxa jira dhul badan ha jeer mara inoo keeno oo maaragtay lagu marmo sida maaragtay article-ka 3 kordhintoo kale iyo waxyaaba badan baa kaasaa jira marka aanu qabaanu guud ahaanba in dastuurka dalka lagu noqdo oo dib loo qabyo tiro si loo helo qaran maaragtay qaran nabadgelyo iyo maaragtay ku waara iyo horumar gaadha aad baad mahadsantahay ma jira waxaad kaga duwan tahay labada musharax oo kale ee fikirka ah in dastuurka la furo iyo qanacsanaan la'aanta aad ka midaysantihiin saddexdiinuba ee aad sheegteen ambasador professor axmed cabdi abyan musharax ku-xigeenka xisbiga ucid waxaan ku waafaqsanahay dastuurka in la furo guud ahaan laakiin waxaan kaga duwanahay labaduba waxaad moodaa inay ku qanacsan yihiin sida hadda wax yihiin waxay lowsan yihiin madaxweynaha iyo ku-xigeenku inay yihiin elected laba mudane oo mas-uul oo shacabku ay doorteen madaxweyne ku-xigeenku inaanu noqon markaa hadhka madaxweynaha ama aanu noqon gacan yare uu yahay mas-uul la doortay oo mas-uul qaran oo madaxtooye uu yahay ayna tahay in uu u adeego qaranka waxa weeye haddii madaxweyne ku-xigeenku aanu awood lahayn dastuuriya ma noqonayo shakhsi u adeegaya qarankii magac buu noqonayaa sida haddaba jirta taa marka waan kaga duwanahay dastuurka in la furo specifically awoodaha madaxweyne ku-xigeenka si laysku wada waafaqsan yahay shacabka soomaaliyeed ee hay-adaha fulinta iyo waxgaradka iyo dheergaradka ee aqoon-yahanka somalilan loo saara guddi arrintaas soo lafagura oo soo saara awoodo aan keenayn conflict iyo hormaad isaga iyo madaxweynaha laakiin wuxuu ku imanayaa markaan awood lahayn isla su-aasha kala duwanaansho aad labada musharax ee kale kaga duwan tahay qanacsan la'aanta aad ka midaysantihiin marka laga tago ama aad isku waafaqsan tahay ma jira musharax ku-xigeenka xisbiga wadani ambasador maxamed cali aw cabdi bismi illaahi raxmaan raxiim anigu waxaan kaga duwanahay waxaan aaminsanahay horta dalku laba madaxweyne laba ma yeelan karo dalku hal madaxweynuu yeelan kara haddii xataa awoodda madaxweyne ku-xigeenka wax loo cayimo waxay noqon doontaa mar kastaba madaxweynuhu inuu yahay madaxweynaha dalka waxa muhiiman aanu aaminsanahay wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay wax walba ka muhiimsan tahay oo labadooda wada shaqeeya maadaama ay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen isku yihiin inay wada shaqeeyaan oo ay iyagoo isku kalsoon wada shaqeeyaan baa ka aaminsan haddii kale madaxweyne ku-xigeenka haddii wax gaara la siiyo dee wasiir kaloo camal kaluu noqonaya waa inuu ku kontaroolaa madaxweynuhu haddana xilka isaga la siiyo awood stoorigu siiyo haddii kale ma fahmi kara anigu madaxweyne ku-xigeenka adduunyaduna madaxweynahunbay la shaqeeyaan way gacan yaro u yihiin oo aaminaadaasaa jirtaa taasaan aaminsanahay anigu aad baad mahadsantahay maxaad kaga duwan tahay fikirka ay aaminsan yihiin labada musharax ee wadani iyo ucid ee la xidhiidha su-aasha hore musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdilaahi saylici bismi illaahi raxmaan raxiim wax kala duwanaansho meesha kuma jiro waxaan isleehay waan isku waafaqsannahay labadeedu saddexdeeduba in awooddii dastuurka siiye madaxweyne ku-xigeenka in wax laga bedelo waan isku waafaqsannahay in guud ahaan dastuurka la furo markaa kala duwanaanshaha waxaan ka muuqdo iminkaan ku kala duwannahay ima muuqdo aniga aad baad mahadsantahay su-aasha kale madaxweyne ku-xigeenada ama madaxweyne ku-xigeenka waxaa hoos imaada ismaamulka gobollada iyo degmooyinka mashruuca loo yaqaano GBLG mashruucaasi oo inta badan mas-uuliyadda madaxweyne ku-xigeenka loogu maamulo gobollada iyo degmooyinka qaybna ka ah arrimaha ammaanka horumarka iyo dhismaha mashruucaasi oo somalilan ka socda cabashooyin kala duwan ayaa jira muxuu yahay qorshaha idinka qorshaysan mashruucaasi gobollada iyo degmooyinka lagu horumarinayo waxaan weydiinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani ambasador maxamed cali aw cabdi bismi illaahi raxmaan raxiim mashruucaasi
waxaa loogu talagalay marka hore ujeeddooyin buu lahaa ujeeddooyinkaas waxay ahaayeen in la dhiso dowladaha hoose gobollada aqoontooda sida dowladaha hoose sare ugu kacaan mashruucaasi waxaa nooga qorshaysan annaga inuu noqdo mashruuc awood leh oo hirgeliya wixii loogu talagalay oo awooddiisu ay tahay inuu dhiso maamul wanaagga degmooyinka iyo dowladaha hoose waxaan aaminsanahay annagu ka xisbi ahaan inaannu ka dhigi doonno mashruuc xoojiya oo sare u qaada aqoonta ay leeyihiin dadka maamula dowladaha hoose dadkaasoo ah inay dhisaan maamulka dowladaha hoose waxa weeyaan horumarka dalku wuxuu ka bilaabmaa tuulooyinka degmooyinka iyo gobollada dowladda hoose waxa weeyaan qayb weyn oo muhiim ay kaga jirtaa horumarka dalka waxaana loo baahan yahay in la dhiso oo awoodda madaxweyne ku-xigeenku ama madaxweynuhaba ciddii haysaaba in la dhiso oo hore loo mariyo aqoonta dadkaasi si mashruucu u noqdo mid taabagala oo ujeeddooyinkii laga lahaa fuliya waad mahadsantahay mashruuca ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ee loo yaqaano GPLG in lagu hormariyo ee hoos yimaada madaxweyne ku-xigeenka muxuu yahay qorshaha aad ku maamulayso mashruucaasi muxuu yahay qorshaha aad ka fahamsan tahay mashruucaasi inuu u hirgalo sidii loo baahnaa iyagoo cabashooyinna ay ka jiraan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdilaahi saylici بسم الله الرحمن الرحيم مشروع عاصي سلاس شيكتي وحوسي بعد مدحوي كحينكا وأنا وشقينيا مشروع عاصي وحنا مشروع لوgu talagalay inuu kobciyo aqoonta dowladaha hoose wuxuu bilaabmay waqti hore laba face baa imika dhamaaday face koowaad dowladdii nagu horeysay baa 2 sano iyo badh soo waday face-kii labaadna dowladda ka soo gaadhay iyo face 2 sano ka soo gaadhay face-kii hore face-kii labaadna anaga dhamaystirnay waxa ka yimid markaa waxa sababta madaxweyne ku-xigeenka hoos keentay waxay noqotay waxa ku boobay 5 hay'adood oo UN caalamiya iyo 5 wadan oo dhaqaalaha ku bixiya si dowladaha hoose loo kobciyo dabeedna wuxuu gashay arrintaasi wasaarado badan iyadoo wasaaradda arrimaha guduhu liir ka tahay oo ama hogaamiso dowladaha hoose waxaa dana meesha yimiday in wasaarado badan hawsha gashay in loo baahday maamul daadejin oo dastuurkeenu qeexayo in dalka loo adeegyada loo dhaweeyo arrimaha dalkeena bulshada hoos loogu daadejiyo taasi waxay keentay in markaa wasaaradihii equal noqdeen dabeedna wuxuu madaxweynuhu hadda jiraa axmed maxamed maxamuud siinaa iyo magacaabay waxaa la leeyahay championka inaan markaa anoo maamulo oo hoos yimaadaan dabeedna muddadii markaa anoo nimaday bay horta mashruuc dhaqaaqay inta hore mashruuc ma muuqan muddada uu dhaqaaqay ee shuruucdiisii iyo capacity buildingkii dowladaha hoose iyo waxoo dhani waqtigaas u dhaqaaqay markaa runtii waxa laga yaabaa in miidiya kala socotaan isbeddelkan ku sameeyey muddadan joogay awooddiina waxay gaadhay waa 8 district weyn laamika maamulaa degmo doorashooyinkeena waxaa sii hadhay 15 district waxaana ku qorsheynay faceka saddexaad in 15 degme hadhay ee degmo doorashooyinka la gaadhsiiyo si maartay hawshaasi u socoto mahadsantahay isla su'aasha mashruuca gobollada iyo degmooyinka ee madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada oo mashruuc ballaadhana oo ammaankana qayb ka ah maadaama horumarintii gobollada iyo degmooyinka uu qayb ka yahay sidaan hore u sheegayna cabashooyinna ay ka jiraan maxaad ka fahansan tahay ee aad ku maamuli haddii aad noqoto jagada madaxweyne ku-xigeenka musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid mudane axmed cabdi muuse abyan mashruucaas ceeb badan baa ka taagan sidaad carabowday mashruucaasi waa mashruuc lagu horumarinayo degmooyinka iyo tuulooyinka dowladaha hoose lagu dhisayo aqoontooda lagu kobcinayo hay-adahooda waxqabad ee heer degmo ilaa heer tuulo
laakiin waxaad mooddaa hadda madaxweyne ku-xigeenka saylici oo hoos yimaado mashruucaasi in dee aanuba gobollada dalka meesha ugu badan uu tagaa waa boorame waxaad mooddaa in meelaha looga banaa ee fogfog ee baahida weyne ay ka jirtay madaxweynuhu intuu tegey way yar tahay in aanu la socon sida wax u socdaan mashruuca annagu waxaanu geynaynaa meelaha looga baahan yahay hargeysa lagu hayn maayo hargeysa lagu qariiri maayo hargeysa lagu sii kala googoosan maayo sida hadda jirta mashruucaas mashruuc si cadaalada loogu qaybiyo gobollada loo dhiibo dad ammaano leh aqoonteediina leh ee aan loo dhiibin dad lagu naasnuujinaya sida hadda jirta ama aan arrimo siyaasadeed iyo loyalty xisbiyeed ama xukuumadeed aan loo adeegsan aad buu hadda u siyaasadaysan yahay aad baa musuqu ugu badan yahay madaxweyne ku-xigeenkuna oo mas-uuliyaddaas ay hoos timaaddo dee waddanka intiisa kale waxaan u malaynayaa sida wax uga socdaan inaanu war u hayn waayo meesha keliya uu tago oo ka war hayaa aynu ognahay waa boorame maanan arag isagoo ku wareegaya meelaha mashruucaasi uu ka socdo ee gobollada waddanka tuulooyinka iyo degmooyinka annagu waxaanu noqonaynaa ama waxaan noqonayaa mashruucaasi iyadoo barnaamijka ay ka mid tahay wax ka beddel lagu sameeyo laakiin inta uu madaxweyne ku-xigeenka iyaga hoos imanayo madaxweyne ku-xigeen wuxuu noqonayaa barnaamijkaas la socda oo tegaya meelaha aad baa mahadsantay ma jira wax kala duwanaansho oo la xidhiidha aragtida labada musharax ee ucid iyo kulmiye oo mashruuca madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada ee hadda laga shaqeeya uu jiro ambasador maxamed cali aw cabdi musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani bismi illaahi raxmaan raxiim sidaan hore u sheegay mashruucaas waxa weeyaan loogu talagalay inuu hore u mariyo isku xidhka degmooyinka tuulooyinka ilaa gobollada laakiin imika intii waxaa ka muuqata la liilo waxaan aaminsanahay mashruucaasi sida loogu talagalay inaanu hirgelino haddii ilaahay idhaahno ku guulaysno talada si loo gaadho ujeeddadii laga lahaa oo ahayd in maamul wanaag ka soo bilaabma tuulooyinka degmooyinka iyo gobollada oo loo siman yahay oo waddanka oo dhan somaliland oo dhan gobolladiisa iyo degmooyinkiisaba gaadha ayaan ku dadaali doonaa haddii alla idhaaho aniga haddaan ku guulaysannana awood xoog laan saari doonaa in mashruucaasi uu noqdo mid hirgala waad mahadsantahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici maxaad kaga duwan tahay isla mashruucaasi haddana aad ka shaqayso ee aad maamusho labada musharax ee ucid iyo wadani ay ka aaminsan yihiin aragtidaasi bismillahi raxmaan raxiim soomaalida xog mahmaadaa waxaa u limaan ogey indhuu ka ridaa walaalahay kolley xog badan kama hayaan intii mucaaradeedu musharaxa wadani ku mucaarad baa ka dhatahay laakiinse xog badan kama hayo waxa weyn mashruucaasi qiimaha uu leeyahay iyo isbeddelka dalku sameeyey iyo cadaaladdiisu mid laga saluugi kara maaha midda kale midaan inagu gacanta keliya ku hayno maahine hay-adaha un-ku iyagaa dhaqaale inagoo ku maamulno inagoo inagu leenahay maaha un-ta hawsha dhaqaalaha bixisa iyagaa degmooyinka kolba intay ku biiriyaan ku biiriya dhulka la gaari waayena iyagaa nagu kontaroola tanu ka yidhi ma gaadho waddankana waxaa nasiib darraa socdaalka ugu dambeeyaan kusoo maray inta degmo ka socdo ilaa burco ilaa oodweyne 8 degmo ka socdaa sanadkiiba mar baan kormeer kusoo maraa aan xogaal ahay waad mahadsantahay loo baahnayo iska aflagaada waad mahadsantahay maxaad kaga duwan tahay labada musharax ee wadani iyo kulmiye eed ka aaminsan tahay aragtida ay ka dhiibteen mashruucaasi oo ah mashruuc ballaadhan oo ammaanka iyo nabadgelyada iyo horumarka degmooyinka gobol somaliland oo dhan qayb ka ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid professor axmed cabdi muuse abyan waxaan kaga duwanahay murashaxa xisbiga wadani anigu inaan aqoon u leeyahay ku safray waddanka galbeed ilaa bari laakiin isagu aanu tegin aanuna indhihiisa ku soo arag dayaca ka taagan mashruucaas iyo inaanu gaadhin meelo aanu gaadhinba inay jiraan oo ka mid yihiin waddanka waxaan kaga duwanahay murashaxa xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ku-xigeenka iyaga cabdiraxmaan saylici
mashruucaas haddaba waa dayacan yahay haddaba ceeb baa ka taagan waxaan u fahmayaa marka in uu aaminsan yahay ama u arko mashruucaasi hadda inuu saxan yahay oo uu si saxa ku socdo waanu fahansanayn ceebta ka taagan corruptionka iyo in qaybo badan oo ka mid a waddanka aanuba gaadhin waa laga yaabaa hal mar ama labo madaxweyne ku-xigeenku inuu ku safray waddanka qaybo ka mid ah laakiin waxaan ogahay in safarkiisu u badan yahay galbeed iyo boorame wax badanna ay uga dhiman yihiin inta badan waddanka siba gobollada bariga waad mahadsantay su-aasha kale awoodda fulinta ee madaxweyne ku-xigeenka waxaan ka hadlayaa waa fulinta go'aamada xukuumadda madaxweyne ku-xigeen ahaan kaalin intee leeg baad ka qaadanaysaa maadaama ay somalilan ka dhacdo in fulinta gudaha laga fulinayo go'aamada madaxweyne ku-xigeenadu aanay qaybo badan ku lahayn sida hore u soo dhacday oo wasiirre kaga awood bataa inta badan ay jiraan sidee baad qayb uga qaadanaysaa markaa fulinta go'aamada xukuumadda aad ka midka tahay ayay su-aashan ku tacalluqdaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici بسم الله الرحمن الرحيم أنت فلنتا يبقى عمل الدولة مدح الكحيين قيب كيهاي تلو أنو أنت بدل أجينا ويرتها ولا جويا سبب طاعة مدح الكحيين والله معناه مدح وينها وين مركز طاعة تلو جوينا يجود جنا بيجلو كمديهاي وحقود ما كان لسه جودها لقى هذا يوم وحقود بدن maanta dalkeena dhibaato jirta waa arrimaha nabadgelyada guddiga nabadgelyada waa 8 xubnood waxa uu jeeray madaxweynaha waxaana ugu xiga madaxweyne ku-xigeenka hadduu madaxweynuhu maqayo waxa jeegay madaxweyne ku-xigeenka marka xaaladaha arrimaha gudaha iyo talooyinka dalka marna madaxweyne ku-xigeenka ka maqna wuuna ku jiraa waxaana nagu diyaar u nahaynaa in haddaan talo guuleysano iminkana waan ka mid ahaa بريكا مالنا هنا مرتي سيقول الجيراني من دحينها للدورتو أنا سيقول الجيران والله شقينا تلاش كم خيالنا. طيب اسم السؤال مشرحة مدحونا كحجينك حسبك أعيد بروفيسور أحمد عبدي أبين سيدبضو قيب وقاعدنا فلينتا قامدا حكومة هدي أتكم من نقطة والله ولد دورتو مشرحات. waxaan uga qayb qaadanayaa sida aanu sheegnay anaga barnaamijkayaga waxaanu siinaynaa ama aanu dastuurka uga raadinaynaa madaxweyne ku-xigeenka awoodo fulineed iyo hay-adaha dastuuriga ee qaranku qaar ka mid isaga inay hoos yimaadaan taasi waxay awood u siinaysaa madaxweyne ku-xigeenka in uu yeesho awood fulineed awood sharciya oo fulineed ma dhacayso sida haddaba dhacda madaxweyne ku-xigeen bara saabkii uu casiray sida cabdiraxmaan saylici ee boorame in la dalacsiiyaba oo uu shaqo ka helo uu noqdo bara saab oo la dalacsiiyo dalacaadba uu ku helo taasi ma dhacayso madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenku waa lamaanaha madaxweynaha maaha lamaanaha waxaan moodaya xaaska madaxweynaha inay tahay madaxweynuhu ku-xigeenku waa waxa weeyaan waa madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynaha wuxuuna leeyahay awood annaga barnaamijkayga siyaasadda haddii aanu guulaysano awood dastuuriya awood sharciya oo fulineed buu yeelanayaa taas waxay yaraynaysaa conflictiga iyo khilaafka saaxiibaday waxay ku soo celceliyeen haddii awood dastuuriya la siiyo madaxweyne ku-xigeenka khilaaf baa imanaya khilaafku wuxuu jiraa hadda marka madaxweyne ku-xigeenku aanu awood lahayn ay ka awood bataan agaasimayaashii wasiiradii ku-xigeenadii taasaa khilaafka keenaysa laakiin haddii uu jiro awood dastuurka uu siinay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu noqonayaa mid ay isku ixtiraamaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu wax waliban ay kala qaybsayin oo kala cad yihiin mana dhacayso madaxweyne ku-xigeen hadba intuu cadhood la soo cadho celinayo sida hadda dhacda ama madaxweyne ku-xigeen marka madaxweynuhu joogo bilaa shaqa oo isugu keliya madaxweynuhu inuu safro ma dhacayso annaga xukuumaddayada aad baad mahadsantay su-aasha lafteeda fulinta go'aamada xukuumadda haddii lagula doorto musharaxaaga madaxweynaha ood madaxweyne ku-xigeen noqoto kaalin intee leeg baad ka qaadanaysaa awooddaasi
musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani ambasador maxamed cali aw cabdi. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka hadlanaa stoorka imiga jira ee aan ku dhaqmanaa awoodda uu siiyey madaxweyne ku-xigeenka waxa weeyaan horaan u sheegay fulinta go'aamada dowladdu fulinayso madaxtooyada ka soo baxaya waxay ku xidhan tahay mar walba xidhiidhka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan aaminsanahay annagu wadani ahaan haddii aan ku guulaysanno fulinta go'aamada ka soo baxaya madaxtooyada inaan qayb weyn ku yeelanayo anigu taasoo ka imanaysaa wada shaqaynta iyo isku kalsoonida naga dhaxaysa aniga iyo madaxweynaha haddii aan ku guulaysanno xukunka stoorku imiga waxbuu qirayaa madaxweyne ku-xigeenka waxa ugu weynaa uu leeyahay marka uu madaxweynuhu dalka ka maqan yahay ka sakow wixii madaxweynuhu u igmado marka xisbigu hadduu xukuumadda ku guulaysto dee awoodda madaxweynaha ku-xigeenka awood dastuuri oo kala siin kari maayo laakiin waxa shaqadeedu waxay noqonaysaa iyo fulinta inaan ka qayb qaataa anigu xisbi ahaan haddii aan ku guulaysto talal waxay noqonaysaa wada shaqaynta iyo is-aaminaadda iyo tala wadaagga naga dhaxayn doonta madaxweynaha haddii aan la yidhaaho oo ku salaysan aqoonta iyo aragnimada iyo wada shaqayntii aan hore u lahayn ardaynimo ha ahaato ama meel aan ka soo wada shaqayna marka waa mid mar walba ku salaysnaan doonta fulinta go'aamada dowladdu ee labada ka dhaxaysa madaxweyne ku-xigeenku ixtiraamka iyo wada shaqaynta labadooda ka dhaxaysa taasaan annagu ku aaminsanahay inaan go'aanada qayb weyn ku yeelan doono aad baad mahadsantay ood mahadsantay hadalkumaya ood mahadsantay fadlan ood mahadsantay ood mahadsantay awoodda halkan kuma lihid xaq kuma lihid halkan ood mahadsantay waxaad tahay inaad barnaamijka daawato ood mahadsantay su-aasha fadlan ha la aamuso xaq kuma leh qofna inuu halkan ka hadlo haddii hadalka la joojin waayo qofka hadalka joojin waaya waa in la saaro sharcigu waa sidaa waa in la aamuso sharcigana uu saaro haddii qofku hadalka uu joojin waayo waxaan ku noqonayaa su-aasha kale dhalinyarada iyo haweenku waa dadka ugu badan ee somalilan codkooda dhiibta marka laga hadlayo shaqooyinka iyo nolosha adeega bulshada ee dhaqandhaqaale haddana waxay yihiin dadka ugu dulman amaba ugu liita dhinaca nolosha horumarka waxbarashada caafimaadka iyo nolosha adeega ay helaan ma jiraa qorshe siyaasadeed oo kaaga yaalla haddii aad tahay madaxweyne ku-xigeen oo lagula doorto musharaxaaga inaad ka caawiso ama aada la fuliso adeega caynkaasiya musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid brofesor axmed cabdi muuse ebyan waxaa nooga qorshaysan qanaacaddan ku qanacsannahay maanta horumar la'aanta ka jirta waddankeenna inay sabab u tahay in qaybaha aada xustay ee muhiimka ah haweenka dhallinyarada waxaan ku darayaa weliba bulshooyinka sida xaqdarada loo haybsooco inay ka maqan yihiin fursadaha shaqo midda dhaqaale midda siyaasadeed waana mujtamaca ugu badan haweenku waa kala badh ama ka badan weeyaan mujtamaceenna inay ka maqnaadaan oo aanay ka muuqan siyaasadda aanay ka muuqan shaqadii aanay ka muuqan horumarkii arrintaasi waxay dhaawac weyn ku tahay horukaca iyo imajka ama muuqaalka waddanka iyo ictiraafka aynu raadinayno sidoo kale dhallinyarada boqolkiiba 70 in ka badan mujtamaceena waa dhallinyaro waxaynu ognahay hablaha iyo wiilasha maalin walba inay ka soo qalin jabiyaan jaamacadaha kumanaan iyagoo ah inay fadhiyaan gidaarada iyo guryaha iyagoo bilaa shaqo oo bilaa camal ah waxa ayaan darro ah in wiil ama gabadh ama inan soo qalin 16 sano wax soo baranaysay in marka ay shaqo raadsanayso sida hadda maanta jirta
ay ku khasbanaato inay u yeedho oday reer miyi ah waan waxna qorin waxna akhriyin inuu horkaco wasaaradda ula tago si uu uga waasteeyo ama shaqo ugu raadiyo oo CV-geedii waxay soo baratay ay geyn weydo gaadhsiin weydo shaqadii ay xaqa u lahayd oo weliba kharash kaga baxo inay u labisto oo ay dharka ka beddesho mararka qaarkood ay ku khasbanaato arrintaas waxa weeyaan anagu siyaasadda nooga taalla waxa weeyaan in aanu empower garayno awood siino dhallinyarada hablo iyo wiilalba haweenku waa lafdhabarta mujtamaca haweenka barnaamij baa nooga yaalla aan xuquuqdooda ku ilaalinayno kuna empower garaynayno awood ku siinayno aanuna ku soo darayno golaha wasiirada aanu dhisi doono iyaga iyo dhallinyarada iyo beelaha lahayd aad baa mahadsantay isla su-aasha qorshaha aad doonayso inaad ku caawiso musharaxa lagula doorto haddii aad noqoto madaxweyne ku-xigeen ee la xidhiidha dumarka iyo dhallinyarada shaqo la-aanta iyo duruufta dhaqan dhaqaale haysaa maxay tahay ee aad doonayso inaad ku caawiso musharaxaaga musharaxa xisbiga wadani ambasador maxamed cali aw cabdi بسم الله الرحمن الرحيم horta marka hore barnaamijka xisbiga waxaa ku dheehan oo ku qoran in dumarka loo xidho 30% wixii soo baxa dalka ka soo baxa ama shaqo ha ahaato ama waxyaalo kaloo dhaqaalahooga kordhinay ha ahaatee xisbigu waa xisbi dhalinyarada sidoo kale waxaa barnaamijka u qoondaysan in dhalinyarada aqoontooda iyo xirfadooda iyo shaqo raadintooda kor loo qaado taasoo ku xidhan barnaamijka dhaqaale ee xisbiga oo ah in dhaqaalaha dalka la kordhiyo waxaa kale oo noogu jirta qorshaha in la yareeyo faqriga waxay ku badan yahay faqrigu wuxuu ku badan yahay dumarka iyo dhalinyarada sanad kasta waxaan ugu talagelaynaa in miisaaniyadda wax looga qoondeeyo oo lagu daro macaawinada adduunkan ka helo in looga daro oo lagu daro dhaqaalaha ay bixiyaan ee ay ku deeqaan dadweynaha iyo ganacsatada dalku si loo yareeyo faqriga oo ah ka haysta haweenka iyo dhalinyarada oo hoos loo dhigo poverty line-ka faqriga haddaan hoos loo dhigin oo aanu jirin barnaamij ah marka horeba ku wajahan in dhaqaalaha la koriyo oo dadka hoose ee maciishadu ku adag tahay sare loo soo qaado barnaamijkaasi haddaanu jirin intaad shaqaalaysaa waxba ka bedeli mayso marka barnaamijka waxaa ku jira in 30% koota loo xidho dumarka shaqo iyo xalba soo baxa dhalinyarada la xoojiyo awoodooda ay shaqo ku helayaan iyo xirfadahooga iyo in la helo barnaamij lagu dhimayo faqriga iyo gaajada oo sanad kastaba loogu talagalo dhaqaale ka soo baxa miisaaniyadda macaawinada iyo waxyaalaha dadku loogu waad mahadsantay isla su-aasha hore dhalinyarada haweenka duruufta dhaqan dhaqaale ee somalilan ka jirta maadaama yihiin dadka ugu badan ee dalka ma jirtaa qorshe kaaga yaalla oo aad doonayso haddii musharaxaaga madaxweynaha lagula doorto inaad ka caawiso oo aad la fuliso oo aad la hirgelisaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wicid brofesor axmed cabdi muuse abyan waxaan moodaya inaan ka hadlay su-aashaas waad mahadsantay cafan cabdiraxmaan cabdilaahi saylici cafan بسم الله الرحمن الرحيم ساد شيكتي حسب والبا برنامج بوليه أنا واحد صوب بندقني برنامج عد وقيحية ساو حقوق بدلنا ما ساو حقوق قبل إنه لينتا يو هوينكا وعاد حقوق مضن قرشا يجي على وحويان سيد برنامج شيء وقريو إن مدحوينها الله شرحنا هاي sida uu qorayo aanu la fuliyo iyadoo inta badan inaga dhaqana qoraal qurux badan inaan samayno waxaase ka habboon fulin qurux badan laga daacad yahay oo laga ru yahay marka waxay qorsheygeela wuxuu yahay inaan saaxiibkay madaxweynaha oo aan ninka dee kulley hogaamiyaha dalka aan noqonay insha allah dib na doorto inaan committee kula noqdo in sidaa waxaan u qornay inaan sidiisa u fulino oo maaragtay aynin naga noqonin
wax qoraal buug lagu qoray ta labaad anagu muddada shaqaynayna isbeddel badan baan runtu ka samaynay inaan dhiiri gelinay dhalinyarta meel soo gaadhsiinay siyaasaddaan soo gelinay waxaan ka jabinay dabarkii baan ka jabinay caqabadda ku hao oo inay 50 sano ku soo galaan siyaasaddaan gaadhsiinay marka meel wanaagsan baan soo gaadhsiinay dhalinyarta iyo haweenka inkastoo haweenku weli dhaqankeenu na jiidanayo oo intii loo baahnaa in la soo qaadin laakiinse dhalinyarta waxaan soo gaadhsiinay heer aad u wanaagsan oon maanta ku odhan karo shaqada aan abuurnay ama shaqada aan samaynay ama golayaasha qaranka ee ugu mudan ina maanta 50% ay dhalinyartu ku jiraan marka taa iyadana halkaasay tahay wixii dambana waxaan ugu talagalnay wixii intaa ka dhimanay inaan qabya tirno runtii inaan isbeddel weyn ku samayno dhalinyarta inaan garoomo abuurno oo ay balwadaha kaga mashquulaan inaan dhaqaalaha kordhina lagu dhiirigeliyo aad baa mahadsantahay ma jirtaa waxaad ku jeceshahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga aad uga tartamayso musharaxa madaxweyne ku-xigeenka oo aad aaminsan tahay inaad ku jeceshahay isla musharaxa madaxweynaha ee xisbigaaga ambasador maxamed cali musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani su-aashaas بسم الله الرحمن الرحيم مشرح مدحوينه حسبيغا وانا هو كلسونا هي oo nin tala wadaagga ku fiican waa nin u dabacsan oo dadka danta yar iyo dadka jilicsan leh u damanqada waa nin talada toosan qaata waa nin go'aankiisu oo ku salaysan yahay hadba wixii anfaca dalka aan aamsanahay waxaan ku kalsoonahay jacayl kale maaha laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay nin dalka hogaamin kara taasoo aan ku kalsoonahay doortay waa daqiiqadu su-aashaas ma jiraa waxaad ku jeceshahay musharaxa madaxweynaha kuugu tartamaya xisbigaaga ee aad u tahay ku-xigeenka musharaxa xisbiga waxaa su-aasha weydiinayaa oo leh cabdiraxmaan cabdilaahi saylici musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye cafwan su-aasha ku yar celi waxaad ku jeceshahay musharaxa u tartamaya xisbigaaga ee jagada madaxweynenimo oo adigu aad ku jeceshahay ma jirta waa hal daqiiqo kooban bismi illahi raxmaan raxiim haa way jirtaa maanta sidaan la soconno dalku qabyo badan bay noo taallaa waxaan ku jecelahay madaxweyne musharaxa madaxweyne la sharaxanahay waxaan u arkaa nin maanta qabyooyinka jira ama isbeddelka loo baahan yahay nin samayn kara oo go'aano adag leh oo maaragtay kala dambaynta dalka maanta soo celin kara waxaan u arkaa nin waxa uu qowlka uu dadka yidhaahdo fulin kara waxa ummadda u ballan qaadana nin fulin kara baan u arkaa waxyaabahan ku jecelahay waxa weeyaan nin wuxuu kuu sheegayaa anuu laba kala hayne isku mid yahay waad mahadsantahay yaan u arkaa waad mahadsantahay isla su-aasha maxaad ku jeceshahay musharaxaaga madaxweynaha ugu tartamaya xisbigaaga eed musharax ku-xigeenka u tahay brofesor axmed cabdi muuse abyan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid murashaxayga madaxweyne hadalkiisu waa cad yahay wuxuu aaminsan yahay uuna bulshada u sheegaa waxna ma qarsado murashaxayga madaxweyne wuxuu ka soo qayb qaatay nabadayntii somalilan ilaa iyo 95kii ma soo qaban xil xukuumadeed mar kastana wuxuu u taagan yahay nabadaynta wax wada lahaanshaha waana taa hadda ee somalilan waana taa hadda uu fadhiyo caynaba caawa u fadhiyey waan u walwalsanay labada murashax ee saaxiibaday maxamedna waxaan u sheegayaa murashaxaagu waxbuu feedhaa cabdiraxmaanna cidda aad u noqonayso madaxweyne ku-xigeen waa muuse ood mahadsan tahay
aad baa mahadsantahay su-aasha kale ma jirtaa waxaad kaga fiican tahay ama ay kaaga fiican yihiin musharaxiinta kale ood aaminsan tahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isleeyahay waxaad kaga fiican tahay wax badan kaga fiican tahay isleeyahay waxaan isleeyahay nin dalka uga wayaarnimo badan baa tahay waxaan isleeyahay nin waxaad tahay intuu ka og yahay dalka in ka badan intay ka og yihiin dalka in ka badan ka og baa tahay waxaan isleeyahay nin maanta bulshadan la rabo inaan hogaamino duruufteeda og kana soo qayb galay dib u heshiisiintii dib u dhiskii ilaa maalinta dalkani maaragtay dib u soo noqoshadii uu la soo noqonaya xorriyaddiisa raggii dalka taagnaa baan ahay waxaan ahay nin waayo-aragnimo badan leh markii hore ganacsado ahaa markii 12 sano golaha deegaanka maamul iyo waxa ku soo jiray iminkana 7 sano madaxweyne ah intaasoo arrimood baa isleeyahay waad kaga horreysaa waxaan isleeyahay waxay aqoon badan yihiin kaa dhacay waqtigu aad baad mahadsantahay isla su-aasha maxaad aaminsan tahay inaad kaga wanaagsan tahay labada musharaxee kale amaba ay kaaga fiican yihiin musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid brofesor axmed cabdi muuse ebyan waxaan kaga fiicnaa horta waa ka dhalinyarahay taa macnaheedu waxa weeye waan ka firfircoonaanayaa waxaan dareemayaa mujtamaceena intoo badan oo dhallinyarada baahidooda iyo dareenkooda baan uga dhowahay waan ka ogahay waxa uu igaga fiican yahay cabdiraxmaan dee waa madaxweyne ku-xigeen hadda murashaxa xisbiga waddani waxaan filayaa wuxuu igaga fiican yahay waa nin waayaaragoo deggan buu ila muuqdaa waxaan ku soo noqonayaa oo labadoodaba anigu aan kaga fiicnaanaya inaan ka firfircoonaanayo in aan ka shaqo badnaanayo in aan u ahay calaamad u ahay wada jirka iyo midnimada somalilan waad mahadsantahay doorashada haddii waad mahadsantahay maxamed cali ambasador maxamed cali aw cabdi cafwan isla su-aashaasi ayaan dib kuugu celinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga waddani bismi illaahi raxmaani raxiim horta barofeerku waa nin yaroo wax laga yaabaa marka uu leeyahay waan kaga ficnaanayaa dafiri mayno dee waxa laga yaabaa haddii la yaaco labadeeda waa naga badinaya haddii la ordo laakiin talada uun baan anagu waxaan isleeyahay waad ka waay aragsantihiin laakiin musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye waxaan is leedahay walaa waxaad kaga fiicnaan kartaa isagu kursigu ku fadhiyaa kursiga intuu ku fadhiyeyna masallo yar buu dhigtay meel xaggan galbeedka uu isku soo koobay talada laakiin waxaan is leeyahay haddaad ku ruqaansato kursigaasi waxaad dhigani darin weyn oo somalilan wada gaadhaa oo aad markaa taladaada iyo caqligaaga u wada gudbiso oo aad noqoto madaxweyne ku-xigeen somalilan oo dhan waay haddii doorashada laga helo musharaxa aad la tartamayso ee aad raacsan tahay ee aad ku-xigeenka u tahay oo uu doorashada diido maxaad yeeli lahayd haddii aad tahay musharax ku-xigeenka musharaxa diiday go-aanka doorashada waxaan u horreysiinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid brofesor axmed cabdi muuse ebyan waxaan kalsooni ku qabaa shaqada wanaagsan ay qabteen nek ama commissionka doorashooyinka qaranka haddii ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo commissionku go-aankaa uu gaadho ah in doorashadaas inay tahay
xor iyo xalaal wax cabashooyin dhaba oo xaqiiqo ah na aanay ka iman anigu waxa aan ku qancayaa resultiga ama maxsuulka ama doonista shacabka somalilan waanan ixtiraamayaa mana filayo murashaxaygu in uu ka hor imanayo taa horena ugama hor iman oo 2 jeer buu doorasho galay labadaba waxa weeyaan isagu wuxuu xal u noqday khilaafkii iyo isqabsigii ka yimid doorashada laakiin waxaan ka walwalsanahay saaxiibaday haddii gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenkayga cabdiraxmaan murashaxiisu laga guulaysto haddii laga guulaysto oo ku qanci waayo doorashada in uu ku raacayo ayaa baan u malaynayaa arrintaasina walwalkeeday leedahay laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala doorasho nabada xor iyo xalaala inay inoo dhacdo saasaan ku rajo weynahay shaqo wacan bayna qabteen commissionku waana ku qarcaynaa go'aankooda kama dambaysta ah hadduu yahay go'aan saxa oo cadaalada waan khalad ka soo noqon waad mahadsantahay isla su-aasha haddii musharaxaaga aad u tahay ku-xigeenku ee jagada madaxweynenimo u tartamaya uu diido go'aanka guddida doorashooyinka ee doorashada haddii laga guulaysto maxaad adigu yeeli lahayd musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani ambasador maxamed cali aw cabdi بسم الله الرحمن الرحيم marka waxaan rajaynayaa in doorashadu noqoto doorasho si xor iyo xalaal ah u dhacda si nabadgelyana u dhacda laakiin haddii ay timaado in lanaga guulaysto oo sida lanaga guulaystaana ay tahay codkii shicibka somalilan oo codkoogii siiyey inta inagana siiyeen in ka badan xisbi kale waa ku qanacnaa laakiin haddii ay timaado duruufo kale oo taa ka duwan waxay nahay inaan ku waafaqno in kaleba waxay noqonaysaa inaan meel ka wada eegno oo ay noqoto in la eego sababta ay ku dhacday sidii maran uga jiro way dalku u xil saaray commission baa loo xil saaray iska diidi maayaanu malaynayna hadduu caqligiisa qabo madaxweyne musharaxii iyo ku-xigeenkiisuga diidi maayaan doorasho u dhacday si xor oo xalaala waxay indha arkayaan baylka gooyaan Soomaaliland oo dhan baa wada arkaysa siday wax u dhacaan commission baa loo xil saaray waxa eegaya muraaqibiin adduunka ka imanaysa joogta oo observerisa marka wixii lagu qanacsan yahay sida waxay ku xidhan tahay in lagu qanco iyo in lagu qanci waaya waxay ku xidhan tahay doorashadu sidii ay u dhacday waxaan aaminsanahay musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani doorasho si fiican u dhacday markaad eegto taariikhdiisa waa nin nabadoona maslaxado badan iyo dhexdhexaadino badan dalka gudihiisa ka sameeyey oo kala gedisan diidiba maayo waxaan aaminsanahay doorasho laga helay oo si xora looga helay xalaala diidiba maayo taasi imanba mayso laakiin haddii ay timaado waxaa la abaarayaa wixii yimaada waana ku qanacsannahay doorashada natiijada ka soo baxda insha allah haddii alla yidhaahdo isla su-aasha haddii musharaxa aad u tahay musharax ku-xigeenku doorashada laga helo oo uu waafiqi waayo go'aanka guddida doorashooyinka maxaad yeeli lahayd musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdulaahi saylici بسم الله الرحمن الرحيم iyadoo kooban horta waxaan aaminsanahay in doorasho xor oo xalaala aan ku soo baxo anigu waxaan aaminsanahay xukuumad ahaan in doorasho xor oo xalaala inoo dhacdo waxaan aaminsanahay haddii doorasho xor oo xalaal ay dhacdo inay cid walba ku qancayso haddiise laa samax lah ilaahay nooga keenee haddii wax qalad ah oo muuqda uu dhaco oo ku qanci waayo musharaxa madaxweynuhu oo anna kula qancoyna waxaasi qalad u dhacay waa laga yaabaa inay ku raaco laakiin sidaan aan arko inay doorashadii xar oo xalaal u dhacday oo saaxiibkay qaadan waaye kuma raacaya waxaan ugu caqli celinayaa inay de wixii xaq iyo xalaal u dhacayoo aan ku qanacno u mahadsan yahay musharaxiintuna aad bay u mahadsan yihiin
waana doodii labaad ee aynu galno si heer qaran ah waana doodii ay ka qayb galayeen musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenada ee Somaliland oo ay tahay markii ugu horeysay ee laga qabtay jagada madaxweynenimo musharaxiin u tartamaya iyo jagada madaxweyne ku-xigeen musharaxiin u tartamaya oo xalay iyo caawa lagu kala qabtay isla hoteelkan Mansoor ee magaalada Hargeysa oo isagana in uu barnaamijkan qayb weyn ka qaatay aan uga mahad celinayno barnaamijka tartanka doorashada madaxtinimada ee la filayo inuu dhaco 13 bisha November ee fooday nagu soo haysa oo bilaabmi doona maalinta berrita ah uu ugu dambeeyay sida sharciga ay dhigeen guddiga doorashooyinka qaranku in aan arrimaha debate-ka ama dooda musharaxiintu aanay ka dambeyn caawa sababtaan labada doodood iskugu xigsiinayna ay tahay maadaama berrito ololuhu uu bilaabmayo waan uga mahad celinayaa martidu way fadhiyaysaa musharaxiintuna way isku soo dhawaanayaan way iska can qaadayaan heesta calanka ayuu barnaamijku ku dhamaanayaa idinkoo mahadsan way isku soo dhawaanayaan way iska can qaadayaan xagga hore ay imanayaan musharaxiintu musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenada bixi fadlan caawiya askarta nidaamka u saxa kuna dhabbahagi noqoy kuna kula noqoy heshiis daalo